Waan ku salaamay saaxiib. Qofka waxa uu wax bixinta badan yahay oo wax isagu hore u soo waayay oo aan soo helin si deeqsinimo leh oo daba ka warwar la ay u bixiyaan waxaas maadaama ay garanayaan qaraarka ay leedahay waxwaayido ama qofkaas sida sayidka ah wax kugu quuraya oo waxa uu doonayaa inuu naftiisa uga magdhowo wixii hore u soo waayay laga yaabee qofka sida waalida kuu jeclaaday inuu doonay inuu ku yiraahdo in badan ayaan ku taamayay inuu qof ii jeclaado sida aan kuu jecelahay saaxiib qof kasta oo marka ay dhibi ku haleesho garab ku siiya murugo kama marna laga yaabaa inuu garanayo qaraarka ay leedahay inuu qofku murugoodo oo aanu helin cid garab taagta oo murugtiisa la wadaagta qof kasta wax ku siiya ma aha hanti leh laga yaabaa inuu si dhab ah u daadan yahay xanuunka ay leedahay inuu qofku wax u baahdo oo aanu helin qof kasta oo madaxa kuu salaaxaya micnaheedu maaha inuu welweliyo walbahaar ka maran yahay laga yaabaa inuu doonay inuu hab kale ilaahay u baryo oo isagoo aamusan oo adiga madaxa kuu salaaxaya oo qalbiga ka leeyahay ilaahayow waa anigaas dadka kale warwarka la qaybsanaya ee madaxa u salaaxaya ee anigana adigu madaxa ii salaax oo warwarka ii weydaari noloshani way adag tahay saaxiib qof kastaana waxa uu dhankiisa ula daala dhacayaa dagaal aana idina war ka haynin saaxiib qosolkaas ilaa gowsaha la qaawanayo waxaa ku qarsoon dhaawacyo aan bogsoon muuqaaladaas nimcada ah ee aad arkayso waxaa ka dambeeya waayitaan adhax jibis ah xitaa qoraalada jacaylka ah iyo alaaba waa tabid iyo xiise loo qabo mid la jecel yahay oo la sugayo dadku waxa ay wax ka qoraan waxa ay waayaan in ka badan inta ay wax ka qoraan waxa ay haystaan si dhibir dadka ku dhaaf oo rafaadka askadeeda ha ugu sii darin hana noqon mid dadka ka arka uun muuqaalkaas guud ee ay muujinayaan ilaahay waxa uu hadiyadaha inoogu soo diraa hab aynaan fahmaynin maadaama uu fakarkeenu kooban yahay aragtideennuna ay xadidan tahay baraaruhu waxay inoogu yimaadaan hab balanbal u muuqda deeqduna hab diidmo u muuqata niyadhiskuna hab niyadjebin u muuqda se markaa fakarku uu kuu tooso ayaa si dhaba u fahmaysaa inuu ilaahay xataa naftaada kaaga naxariis fadnaa rabbiga samuhuna aanu waxa aan samo ahayn kuwa hagaynin cabdulaahi ibnu cabbaas ayaa ku yidhi ardaygiisii cada ibnu abirabac oo ku tusaa gabadha ehlu janna ah cada haa ayuu ku yidhi cabdulaahi ayaa ku yidhi gabadhaasi nebiga sallallahu calayhi wasallam ayay u timi oo ay ku tidhi rasuulkii allow waan suuxaa oo dharka ayaa iga faydna ee ilaahay ii bari markaasuu nebiga sallallahu calayhi wasallam uu ku yidhi haddii aad doonto u samir oo janno ku hel haddii aad doontana ilaahay waan kaaga baryayaa inuu kaa shaafiyo markaasay ku tidhi iska daa waan u samrayaaye ee inaanay maryuhu iga faydmin oona ilaahay iiga bari markaasuu nebiga sallallahu calayhi wasallam ugu duceeyey saaxiib xanuunku waa mid ka mid ah hadiyadaha ilaahay wuu kugu imtixaamayaa si uu kuugu dhaafo dembiye aanay adeecistaadu gaadhaynin heer uu kaaga dhaafo wuu kugu imtixaamayaa si uu qalbigaaga u jilciyo oo qalbiga waxa ugu waxtar badan oo uu ku waayo arkaa marka uu xaalad taagdarro ah dareemo ee adduunkuna uu xaqiiqdiisa tuso hadduu dibqalaac yar yahay naftu dumqanayaan isbixin abwanadraawi bal u fiirso bilicda muuqaalkaasi uu leeyahay inuu ilaahay qalbigaaga kaaga hinaaso